Israel burns Gaza for a year and a half with missiles funded by American taxpayers, only for God's punishment to strike the U.S. in just 2 days. For over a year and a half, Gaza has endured relentless bombing by missiles financed through the taxes paid by American citizens. This brutal assault has caused immense suffering for Gaza's residents and left its infrastructure in ruins, while the world remained largely silent. However, in just 2 days, divine retribution struck the United States as a natural disaster. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكائد مقليسين وحالة هاي تايلر سويفت وهويني فنانة عان كا يعني عالم كا إيو ودن كا مريكان كا انتبه هويني داسي وحا أي أفسرتي دبكا كقرحي مقالة لوس أنجلس إن وياهي عشورتي أي بحينيين oo ay siinayeen Netanyahu iyo rajiimkiisa oo markaasi lagu xasuuqayay dadka aan waxba galabsan ee reer Falastiin waxa ay markaasi tiri waxa caalamkuna wuu aamusnaa inaguna waxa aynu maaragtay bixinaynay cashuurteena si maaragtay loo siiyo hub iyo maxaan ku yiraahdaa iyo logistic ama rasaas shidaal wax walba oo ay u baahan yihiin waxaynu siinaynay dawladda Yuhuudda si ay dulmigeeda ay ugu guuleysato sanad iyo badhna arrintaasi waynu wadnay kadibna caalamkii oo dhan baa ka aamusay waa xaqiiq weeyaan kadibna waxay tiri waxa meesha soo galay markaasi faragelin rabbaani ah faragelintaas oo markaa sababtay in masiibad dabiici ah ay ka qaraxdo wadanka Mareykanka gaar ahaan magaalada Los Angeles taas oo iminka gubashadu ay marayso in ka badan intii Gaza gaadhay intii magaalada Gaza gaadhay in ka badan ay hadda gubashadu ay marayso tafsiirkaasi quruxda badan ayay gabadhaasi fanaanada ahi ay ku fasirtay waana xaqiiq qof kasta oo muslim isagu garanaya in dhulmi falaha ilaahay uu ka jaro oo marar badan baynu quraanka ku aragnay haddii aynu eegno aayadda qaybteeda ugu dambaysa آيات كوبيو صدنات سورة الرعد ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا ولا يزال الذين كفروا كما السوليان داتك قالوا بي تصيبهم إني أصيبتو بما صنعوا وحكم ذا وحي أي جيستين ظلمئة قارعة أو مركاسي قراعيسة يعني دباتوين با لغو سليضيا هنقطو نوع والبا أو تحل قريبا أما وحا دوان كو حلالو بيسا وحلال كو نقونا يسمى محي من ديارهم يعني دباتوين لو جيسانيو يعني ديغان كودا حتى إلا إيو ويسعونيسا أرنتاسي محي إلا إيو يأتي وعد الله إلا أيمادو بلنتي إلهي إن الله لا يخلف الميعاد إلهينا مخلافو بلنتيسا يهودي أيا مركاسي وحا أي سميين إن أي قبردي مدام أي قفعانة تهي إن أي مركاسي ماركتي أي هذا الكيدي ودليلان يراهدان ما دعي كرتو يجو أمريكا محي نعيان إن مريكانكو أو أوجادو دتك مريكانك إني أوجادان هذا الكن يكون هذا ليس إنه حقيقي هي كدبنا كمان تيجي بيكون معجن تدفر بدن المسلمين نوي أهيليين أو ماركتي وهاي كتل مامين هذا الكي يكون هذا ليسو إنه يهي هذا الحق
وانا رنتي هذا الحق لكن يهود ما جعل حقا sidaas darteed weerar dhan walba abay ku soo qaadeen marka waxaynu leenahay gabadha miskiinada ana ilaahay ha ka badbaadiyo colaadaasi ay maaragtay ku kasbatay hadalkaas ay jeedisay ee xaq qof kasta oo xaq ka hadlana maxaan ku yiraahdaa cadawgiisu waa badan yahay dadka reer Falastiina ilaahay ha u gargaaro dadka dhaalimiinta ana ilaahay xaq ha tuso si ay u joojiyaan dulmiga ay ku wadaan dadka muslimiinta وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل أن الله سبحانه وتعالى